bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan daawadayaal halkan waa janaalka alxurriya news waxaad kusoo dhawaataan qodobada ugu doorka roon wararkaan idiin hayna xilligan fal argagax geliya dadka ku dhaqan magaalada dhuusamareeb oo ka dhacay duleedka magaaladaasi billa Soomaaliya oo mushaar ka dhintay ciidamada koofiya casta ee ilaaliya madaxtooyada iyo cidda la siinayo oo la shaaciyay nabad iyo nolol oo daaha ka qaaday in ay mamnuucday soo gelitaanka dadka ka imaanaya afar wadan haddaba waa kuwee wadamadaasi maxaad kala socotaa saddex sababood oo khayr uu kaga guuleystay dani kuna soo bandhigay awoodiisa digniinta filla Soomaaliya dunida ay u jeedinayso oo sii korortay iyo qoraal xasaasi ah oo laga soo saaray xiisadaha Soomaaliya Kenya iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka farmaajo iyo khayr oo si wada jira uga carooday amar diiddo uu sameeyay taliye Mas'uud iyo xiisad arintaasi ka dhalatay akhbaraadka dibadda wararka janaalka alxurriya news aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya Turkiga oo 3 nin ku xukumay 125 sano oo xabsi ah qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan wararka janaalka alxurriya news haddii aad janaalka ku cusub tahay fadlan subscribe noo saar gambaleelkana furo si aad u noqotid qofka ugu horeeya ee hela wararka warbixinada 24 saac halkan aanu soo gelino aanu ku bilownay fal argagax geliya dadka ku dhaqan magaalada dhuusamareeb ayaa waxa uu ka dhacay duleedka magaaladaasi wararka naga soo gaaraya gobolka galgaduud ayaa sheegaya in meydka gabar yar oo 12 sano jir ahayd lagu arkay deegaanka Bohol oo dhaca duleedka waqooyi ee magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug ciidamada booliska Galmudug ayaa la sheegay in meydka gabadhan yar oo jirkeedu uu ka muuqday jirdil xoogan oo sababay geerideeda in ay geeyeen magaalada dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug sidoo kale wararka ayaa sheegaya in ciidamadu ay gacanta ku dhigeen marxuumada hooyadeed iyo saygeedii oo lagu tuhmayo in ay ka dambeeyeen falkaasi kuwaasi oo ay ku socdaan baaritaano dheeraad ah isla markaana wax laga weydiinayo falkaasi iyo sida uu dhacay ilaa iyo hadda si dhab ah looma oga sababta ka dambaysa dilka gabadhaasi yar oo si arxan darro ah loo dilay sidoo kale ma jiro wax faahfaahin dheeraad ah oo saraakiisha ciidamada iyo laamaha amniga ay ka bixiyeen meydka gabadhan yar ee lagu arkay magaalada dhuusamareeb duleedkeeda dhacdadan oo si aad ah ay ula yaabeen dadka ku dhaqan deegaanka ayaa saaka laga hadalhayaa duleedka magaalada dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug iyo guud ahaanba deegaanada gobolada dhexe wali waxaad daawanaysaan wararka janaalka alxurriya news waqti wacan ayaan idin leenahay saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay in min $100 ay ka jartay mushaarka ciidamada ilaaliya madaxtooyada Soomaaliya ee qaranka kuwaasi oo sidoo kale isbedel weyn lagu sameeyay maalmihii la soo dhaafay xog ay heshay alxurriya news ayaa sheegaysa in ciidamada markii hore ay ka lacag badnaayeen ciidamada kale ee qaranka maadaama ay yihiin ciidanka ilaaliya madaxda qaranka waxaana la sheegay in haatan laga gooyay lacag dhan $100 Mareykanka ah sida ay noo sheegeen xubno ka tirsan madaxtooyada filla Soomaaliya jarista lacagta ciidanka ayaa ka bilaabatay bishan waxaana dhammaantood la sheegay in wixii hadda ka dambeeya aan la siin doonin sidoo kale filla Soomaaliya ayaa bedeshay ciidamada koofiya casta waxaana lagu bedelay ciidamada u badan kuwa ka soo jeeda deegaanada gobolka Gado iyo sidoo kale koonfur galbeed Soomaaliya lama oga sababta ka dambaysa arintaasi hase yeeshee waxa ay noqotay hadalhaynta ugu weyn ee ciidanka dhexdiisa ka jirta xilligan waxaana qalbiyada ciidanka laga dareemayaa niyad jab iyo dhibaato soo food saartay xilligan xildhibaanmaha salaad oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa shalay shaaciyay in dowladda federaalka Soomaaliya ay halis gelisay ciidanka ka soo jeeda gobolada Banaadir iyo Shabeellaha Dhexe isla markaana ay u dirtay goobo dagaal ay ka jiraan oo ka jira dayac baahsan sida uu hadalka u dhigay ciidamada cusub ee ilaaliya filla Soomaaliya badankooda ayaa la sheegay in ay ka soo jeedaan beesha uu ka dhashay Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo oo ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya halka kuwa la bedelana ay ku beel yihiin madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya waxaana la sheegay in ay tahay arintaasi mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee Farmaajo uu u bedelay ciidankii koofiya casta ee ilaalin jiray madaxtooyada Soomaaliya wali waxaad daawanaysaan wararka janaalka alxurriya news waqti wacan ayaan idin leenahay saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa mamnuucday dadka ka imaanaya afar dal oo ka mid ah kuwa sida ba'an uu ugu faafayo cudurka coronavirus in ay soo galaan gudaha dalka Soomaaliya qoraal ka soo baxay hay'adda duulista rayidka iyo saadaasha hawada Soomaaliya oo ku taariikhaysanaa 10 Maaj ee bishan aanu ku guda jirno ayaa lagu mamnuucay in dalka Soomaaliyeed ay soo galaan dadka ka imaanaya dalalka Shiinaha, Talyaaniga, Kuuriyada Koonfureed,
iyo dalka Iiraan. Qoraalka ayaa waxaa sidoo kale lagu mamnuucay in dalka ay soo galaan dadka dalalka kale ka soo jeeda balse soo mara afartaasi dal 14 maalmood ee ugu dambeeyay. Afartan dal ayaa ah kuwa ugu xun ee cudurka coronavirus uu sida aadka ah u saameeyay, waxaana hadda ugu daran Talyaaniga, Iiraan, Kuuriyada Koonfureed, halka Shiinaha uu muuqdo in inta badan uu la tacaalayo cudurkaasi oo markii hore uu ka bilowday. Qoraalka dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in tallaabadan looga gol leeyahay in looga hortago in cudurka coronavirus uu ku faafo Soomaaliya. Dhammaan shirkadaha diyaaradaha ee ka howlgala magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka ayaa loogu baaqay in ay u hoggaansamaan awaamiirta ka soo baxday dowladda federaalka Soomaaliya. weli waxaad daawanaysaan wararka janalka Al-Xurriya News. waqti wacan ayaan idin leenahay saaxiibayaal. markana wasiirka wasaaradda qorsheynta, maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa ka baaqday shirweynaha wadatashiga Puntland oo 15 bishan Maarso oo ku beegan maanta ka furmaya magaalada Garowe ee caasimadda gobolka Nugaal. ila lagu kalsoonaan karo oo wasiirka ku dhow ayaa sheegay in dhowr sababood ay keeneen in wasiir Jamaal uu ka biyadiido shirweynaha isla markaana uu ka tanaasulo ka qaybgalkiisa oo dadka badankiisa ay aad u hadalhayaan xilligan. sababta koowaad ee wasiir Jamaal uu uga baaqday shirweynaha wadatashiga Puntland ayaa salka ku haya ujeedka shirkan laga leeyahay iyo waqtiga uu ku soo aaday oo ay dadka badankiisu u arkaan mid lagu dan leeyahay in lagu mucaarado culaysna lagu saaro dowladda federaalka Soomaaliya oo uu wasiir Jamaal ka tirsan yahay. sababta labaad ee keentay in wasiirku uu ka baaqdo shirweynaha ayaa lagu sheegay in ay timid kadib markii wasiir Jamaal oo sidoo kalena ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka dowladda federaalka Soomaaliya uu la tashi la sameeyay bulshada deegaanka u matalo, iyaga oo wasiirka kula taliyay in uusan aqbalin martiqaadka shirkaasi oo aanu ka qaybgelin maadaama ay jiraan cabashooyin badan oo dadka deegaanku ay ka qabaan maamulka Puntland iyo meesha wax loo wado. ugu dambeyn sida laga soo xigtay ila xog ogaal ah, wasiir Jamaal ayaa la sheegay in uu shirka ka baaqday kadib markii uu ku dooday in uusan diyaar u ahayn in uu goobjoog ka ahaado madal sida la rumaysan yahay lagu kala fogeynayo shacabka Soomaaliyeed oo waqtigan baahi weyn u qaba midnimo iyo dawlad loo dhan yahay inay helaan. shirka Garowe ayaa madaxweyne Siciid Cabdilaahi Dani waxa uu ku baaqay kadib markii uu ka carooday dowladda dhexe oo uu ku eedeeyay in ay dagaal ku hayso maamul goboleedyada dalka ka jira xilligan. weli waxaad daawanaysaan wararka janalka Al-Xurriya News. waqti wacan ayaan idin leenahay saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan. midowga Yurub ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu walaac uga muujiyay xiisadda ka dhex oogan Soomaaliya iyo Kenya iyo tan dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka. midowga Yurub ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu walaac uga muujiyay xiisadda ka dhex oogan Soomaaliya iyo Kenya iyo tan dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah u dhaxaysa xiisadda ka taagan xuduudda Soomaaliya iyo Kenya. ciidamada isku aruursanaya gobolka Gado waxa ay abuurayaan xasilooni darro iyo khasaare nafeed oo gaara shacabka. sidoo kalena dagaalka bishii tagtay dhamaadkeedii ka dhacay gobolka Mudug waxa uu abuurayaa xiisad ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay midowga Yurub. si guud xaaladahan waa kuwa halis ah waxayna weecinayaan kheyraadkii military iyo howlgallada lagula dagaalamayo dagaalyahanada xarakada Al-Shabaab ee gobolada Shabeellada Hoose iyo Shabeellaha Dhexe, iyagoo halis gelinaya xasiloonida ay heshay Soomaaliya. waxaana sidoo kale dhaawacayaan xiriirka Soomaaliya iyo dalalka deriska ah. qoraalka ka soo baxay midowga Yurub oo aad u dheeraa ayaa waxa lagu soo gabagabeeyay in la wada xaajoodo waa qodobo muhiim ah si loo sii wada shaqaynta wax ku oolka ah ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo saaxiibada caalamka ee ku dhisan isla xisaabtan labada dhinac iyo iskaashi ka dhaxeeya labada dhinac intaba. weli waxaad daawanaysaan wararka janalka Al-Xurriya News. qaybihii ugu dambeeyay wararkeena ayaan isla soo gaarna. markana warar soo baxayo oo aanu ka helayna magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in uu kala shaki soo kala dhaxgalay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo taliyaha guutada 15aad ee qaybta 12aad ee ciidamada xoogga dalka General مسعود محمد ورسمه. xafiiska ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa ka carooday amar diido uu sameeyay taliye Mas'uud oo ku aadan in dowladda federaalka Soomaaliya uu ku wareejiyo
hubka ahlu sunna ay u dhiibtay si hubkaasi loogu daro hantida qaranka. Mascuud oo horay u ahaa taliyaha ciidamada ahlu sunna inta aan lagu wareejin dhanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa fulinaya ballan uu la galay madaxda ahlu sunna kaasi oo ahaa in noloshooda iyo hantidooda uu ilaalinayo, waana midda keentay in ay soo dhiibaan madaxda ahlu sunna oo dagaalkii Dhuusamareeb looga awood roonaaday. Waxaa soo baxaya warar sheegaya in xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu bilaabay qorshe curdun ah oo ujeedkiisu yahay in hubka iyo xilkaba laga wareejiyo Generaal Mascuud Maxamed Warsame, taliyaha guutada 15aad ee qaybta 12aad ee ciidamada xoogga dowladda federaalka Soomaaliya. Saraakiisha u dhawaan wareejiyay madaxii xukuumadda Galmudug ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen in Sheekh Maxamed Shaakir uu ku amray in ay la shaqeeyaan taliyaha guutada 15aad ee qaybta 12aad ee ciidamada xoogga dalka. Warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya halka xilligan uu ku dambeyn doono mustaqbalka Mascuud Maxamed Warsame oo ah taliyaha qaybta 15aad ee qaybta 12aad ee ciidamada xoogga dalka, waxaana guluf xilligan uu kala dhaxeeyo dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo xilligan laga abaabulaya sida la tilmaamay oo wararka qaar ay soo baxaya ay sheegayaan qorshooyin xilka looga qaadayo taliye Mascuud loogana wareejinayo agabka iyo hubka uu hayo ee markii hore laga keenay dhanka ahlu sunna wal jamaa. halkaad warkaasi kala socotaan waa janaalka Al-Xurriya News. markana akhbaaraadka dibadda. maxkamad ku taala magaalada Ankara ee dalka Turkiga ayaa 3 nin oo dadka tahriibiya ku xukuntay xabsi gaaraya ilaa 125 sano oo xabsi ah. 3 nin oo ciidamada xeebaha dalka Turkiga ay qabteen ayaa loo haystaa dilka wiil yar oo u dhashay dalka Syria oo lagu magacaabo Alan Kurdi, kaasi oo ku qarqarmay badda u dhaxaysa Turkiga iyo Greega sanadii 2015. wiilkan oo 3 jir ahaa ayaa meedkiisa oo xeebta yaala oo sawirro laga soo qaaday ayaa waxa ay qabsadeen warbaahinta caalamka, waxaana dowladda Turkiga ay sheegtay in loo baahan yahay in dadkani magdhow ay ka bixiyaan arrintaasi. guud ahaan daawadayaal waa naga inta wararka aad kala socoteen janaalka Al-Xurriya News. haddii aad janaalka ku cusubtahay fadlan subscribe inoo saar.